kulanti wanaagsan dhegaystayaal idin ahaantiinba ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee sheekadii filan qadmaan caamir waa mid ka mid ah wiilasha u dhalay oday caamir sidaad wada garanaysaan ba waa odayga jinka ee muslimka qadmaan reerkoodu waxay degan yihiin magaalada muqdisho haddana wax la yaab leh inta badan kama dhammaado halka dhulbeereedyada weliba wuxuu u badan yahay deegaanka afgooye talow qadmaan halkaa muxuu ka sameeyaa aabihii waa oday caamire markii uu dubay qabanayey ee safarka uu ku baxayey wuu maqnaa carruurtiisana wuu kala dardaarmay oo waxa uu sheegay gabadhiisa curadda in qadmaan iyo saalim oo maqnaa labadaba la gaadhsiiyo dardaarankiisa oo dadka aanay dhibin laakiin waxaa isweydiin leh mar haddii reerkooda xamal ay degan yihiin qadmaan waxa uu ka qabto afgooye waa arrin la yaab leh afgooye maan dii karaa afgooye beerahan iyo tacabkaan waa inaan aniga aan beera ku yeeshaa oon xoolo ku yeeshaa afgooye maan dii karaa aniga afgooye la-aantiisa abaar waay aniga cambahan iyo muuskan beerahan babayga ah haddii aan dadkaan ka xoog lahaa oo wax ku yeeli lahaa aabahey aan ka cabsaano aabahey us waxaa waaye dadkaan dhaaf ha dhibino aniga waxaa waaye beeraha inaan wax ku yeesho beeraha inaan meel ku yeesho beera yeesho afgooye aniga maka maari maaye afgooye degaankayga dhan oo afgooye noqohaa aniga xamar waa kasoo guuraa aniga xamar waa kasoo guuraa afgooyaan degaa beerahan weliba degaa beerahan inaan afgooye ku yeesho qayb weyn ku yeeshaan raba aniga nin aniga aan ahaynna masoo geli karo meeshaan afgooye horta guri waa ku leehay moogta laakiin si toos inaan beeraha usoo dhex dego oon beerahaan oo dhan ba aniga aan madax ka noqdo ujeedkayga horta uu yahay taas waatan qorshaha iigu jirto arrintaasna haddaan u nabagelayaa waana wax aan wax ka qabanayo waa yaab la yaabkii oday caamir wuxuu ku maqan yahay dubay oo safar ayuu aaday ilmo caamir 5 ayay ahaayeen qadmaan waa kan go'aansaday afgooye inuu usoo guuro beeraha wax ku yeesho naciimana waxaanay ka dhammaan jirin oo had iyo gooraale ay tegi jirtay kulliyadda la foole halkaasuu habeenkii ardaydu ay isugu iman jireen dhowr habeen ayay naciimi ku soo lugo'day meeshii ardaydu ay isugu iman jireen oo maxay ka soo doontay la garan maayo waxaase la filayaa in mid ka mid a ardayda damacuu ka galay ilaa iyo muddo bilah halkaa la isuguma iman naciime aabaheed intaanu dubay qaban waxa uu kula dardaarmay inuu maqlay xog sira oo sheegaysay in ay la foolo qabato waase la ogaa way ku dafirtay wallahi waa yaab anigu ma daayo la foole aaditaankiisa oo ma aan arko inankaan jeclaa oo haddaba farxaan aniga unbaa jecele imaba ogaba asagu anigana dardaarankii aabbahay wuxuu ahaa la foole baa tagtaa
anigana waan ku dafirayo waxaan iri maba tagaba laakiin waxaan u malaynayaaba anoo maqan inuu aabahay yimaado oo abudabay uu ka imaado anoo la fool soo jiraba mar kasta waan ku soo noqnoqdaa ardaydiina aweyskii maba ka dhex muuqdaba muddo bil ah ayaan waxaan ku noqnoqonay kulliyadda oo aweyska farxaan igama muuqdaba talow maxanuunsan yahay masafar buu aaday awal baa waxaa la yidhi laba kala bariday kala warla farxaan anigu unbaa jecele asagu maba ogaba yaa maba ogaba laakiin wax badan baan ka xishooday in aan raadiyo kulliyadda asagu uu degan yahay laakiin waxaan isku dayi inaan hadda aado kulliyadda farxaan allow sahal amuuraha mahiga تعرفان باسم قوريا ميراني سيمدك سيب قاليا موسدفا في السوداء موتنا إذا مقال وايه نفسك يوم كان إذا مقال وايه ماما كان هاي نجوغا ماميرك هاي مناجي هاي ماما كان هاي نجوغا ماميرك هاي مناجي هاي الله يوم رسهاي هاي محدودين نانيبه مركي الله يوم مركي layaab qoftii naciimaha jacayl baa galay allow muraadkeeda sida diileed adduun baa og haaruun waa ninka loomaystaa aroor walba badda wuxuu tagaa 6 aroornimo maalintaasoo dhan wuxuu la xarbiyaa sidii ku heli lahaa kalluun markaa nolol maalmeedkiisa uu ku habo alla ilaahay waa inaan saakayto aan badda ku kalahaa si aan u soo jilaabto isla markaana aan u suuq geysto hilibka malaygaasi subaxaasoo dhan waa badda ku jir duhradii waa badda ka imow waa haddii aad timaadana waa miiska gee 3 xabo oo qurah oo malay ah waa haddana googoo oo cadcadee oo faa'iido ka sii raaday wallaahi waa yaab 3dan malay anigu waxa maalin walba uun inaan helo sixir iga dhigay waaba la yaabay laba ma helayo hal ma helayo subaxii waan baxayaa 8 saac 3 xabaan wataa tolo 3dan xabo waxaan isleeyahay ilaahay baa igu talagalay in ilaahay baa igu quudinayo isle addoonkaaga 3da xabo uga badin hana ugu yareen ilaahayna waa iga badin karaa waan iga yareen karaa wax kastay ahaataba anigu waan iska jarjaranayaa feetaan uga goosanayaa faa'iidan ka sii raadinayaa maxaa yeelay tabar kale ma wahaye ilaahay aan baryayaa in ilaahay 3 ka fiican ka tiro badan ka xoolo badan in ilaahay isiiyo oo baddaas nimco badan oo barakaysan ilaahay isiiyo kuwa haystana ilaahu ayagana u siiyay annagana kuwa ayaga ka badan ilaahay u siiyay rabbi raxmaano baashi waxa la ogaa kal hore in muuqaalka iyo bilicda sabaad ay beer qaaday ileen arrinku kaligii kuma koobna laakiin la iskama warhayo sabaad quladeedu waxay daaqada ka daawataa inanka baashiya ee galab kasta gurigooda
soo hareer mara khaasatana soo mara daaqadda guriga ay ka degan tahay sabaad arrintaasi waxay ku abuurtay welwel iyo fikir fara badan inay maalintii waqti badan ku lumiso arrimo ku saabsan inankan iyo meesha uu soo maro والله waxaan sameeyay ma aqaan yaab way arintan wax fudud ma aha aniga ninkaaniti markuu inta soo maro ma aqaan sida noqonayo 2 usbuuc hadda waa filaya inay leegtahay muddada aan arkay wiilkan magaciisa ma aqaano meeshuu degan ma aqaano noloshiisa waxba kama aqaano laakiin runtii kulli muuqaalkiisa waan ka helay hatta ma fahansan dabeecadiisa sida tahay laakiin qof qalbigay ku soo laablaabtay in badan mar walba ninkan qalbigayga uu ku soo noqnoqonaya ma aqaan wuxuu iga rabo aniga ninkan markaan seexa isdhaa waan soo xasuusanaya markaan kaliya joogo waan soo xasuusanaa markaan cuntada cunaa sidoo kale ma aqaan waxaan maayaa ninka inaan ka helay aniga wallahi bilaa way dhib badan tahay qof aad dabeecadiisa aqoon oo magaciisa aqoon sida wax u fahansiiso ama jaceelka la uu sheegato ma runtii arrin sahlan ma arrin lagu degdegi karo sababtoo aan wax badan kama aqaano qofkaas si kastoo ahaataba laakiin ninkaan inaan diin karo ma aha waa qof aan ka helay galab walba 9 saac ilaa 10 saac oo soo maraa gurigeyga daaqadiisa wali meesha ku beegan qolkayga laakiin mid ay jirto kaliya horta aan fududahay ninkaan naftirkiisa isaga ma liito sababtoo ah markuu soo baxaayo uu kor ka soo baxaayo jidka uu socod boobsiinaya ma aqaan meel buu ku cararaa galabtii markuu cabaar socdo daaqada u soo dhawaadana socodka wuu tartiibiyaa mararka qaar waxaa dhacday inuu iska istaago oo cabaar taagnaado kaligiis marka waxba jira kullee ninkaan waa laga yaabaa si naftirkiisa sida aniga u jeclaado inuu jeclaado way arkaa waa hubaal inuu arko sababtoo ah daaqada markuu maray hadduu wax jeclaan muxuu socodka u gaabiyaa kullee si kastoo ahaataba waxaa ilaahay ka baryayaa aniga isaga qalbigeena inuu ilaahay isku soo duwo oo labada qofood oo is jeclaado oo iska hela nololna isla gaar ah noqon aniga isaga taasaan ilaahay ka baryayaa wax kale intuu sheego ma aqaan miskiin qoftii sabaad ahay jacayl baa galay waxaa la odhan jiray bidaari sibiq bay kugu gashaa waa tano isla hadlaysa keligeed faraha taagtaagaysa inaanay seexan sheegtay in aanay habeenkii hooyeen sheegtay xilligay cunayso saxanka dhexdiisa inankan daaqada soo maray inay ka aragto waa tan tilmaantay laakiin nafteeda waxay ku qancisay inankan laftigiisu in marka uu gurigooda ku soo dhow yahay saanta isagoo awal boobsiinayay markan uu saanta soo gaabiyo oo qoon yar socdo mararka qaarkoodna gurigooda uu dhinac istaago waxaa aqalka soo galay sabaad oo isla hadlaysa ismahaan waxa ay saaxiib lilaahi yihiin sabaad gabadha la yiraahdo nafta ayuunbaa u dhaxaysa ismahaan markay soo gashay waxay aragtay sabaad oo isla hadlaysa way istaagtay horayse kalamay hadal oo waxay sugtay bal gabadha waxa ku dhacay dhibka jira inay wax ka yara dareento sabaad saaxiib in cabaaran ku eegay kaliya isla hadlaysa maxaa ku hela صاحب ما قال والله سدا أنا كده باص كده حياسنا sabab maxaa dhacay dhexyaac maxaa keenay صاحب هذا كل شيء كورت وكعجبيسه نبان كليسه ku jeclaaday marka saaxiibay waxaan sameeyay ma aqaan adiga ma talka rabilaayi ka keenay ayuu yahay ninka wallahi aqoon saas u mali saaxiib ninaad aqoon u lahayn sidee ku bartay sidee ku jeclaatay صاحب kulli waan arkaa aniga waxaan filayaa jaceelka inuu aragtida ka bilowdo magacii صاحب magaciisa ma aqaano way xaafadu miyuu nala degan yahay ما xaafadeen kulli ma degan haye halkeen ka baadi goobna waa tahay ninka صاحب والله ninka meel u degan yahay ma aqaano magaciisa ma aqaano wuxuu yahay ma aqaano laakiin waxa sheegi karaa kulli inaan jeclahay aniga isaga od aragtay bis waan arkay waan jeclahay waan ka helay waa tahay maxaan sameynaa walaal marka صاحب adiga ma tala ka reeb wixii la sameyn karo waa ay sheegto ninkan aniga ma aqaano magaciisa meel uu degan yahay wuxuu yahay laakiin waan jeclaaday qof xitaa uu saaxiib la yahay ma garanaysid ma wallahi aqoon aan aragtay ahayn aniga u mali marka saaxiib arintan waa arin adag koodhe waxaan u maleynayaa maskaxdaada inaad dejiso oo aad markaas iska ilowdo kullayba qof waxa tahay aan caadi ahayn qof aadan aqoonin magaciisa aqoonin meel uu degan yahay aadan aqoonin marka waxa ay lagu la fiican tahay inaad iska dayso saaxiib saaxiib sidee ila hadlaysa aniga muwaanata adiga ma ninkaan jeclaa iska day igula talinaysa waxaas tala ma saaxiib
talaan kaaga baahana garabkayga tahay saaxiib waxa loo yahay markii la dhibaataysan yahay wax la isku qabto marka saaxiib dhib weyn ay haysto ninka haddaan ilaawi karo marna ilaawi laha laakiin ma ilaawi karo ninkan waa tahay nin jid socda miyaan garabka ka soo qabsanaayo wax isaga sheegnaa dhibaata hadhow nooga iman karta adiga wax la sameey wax la xalkeen le waa tahay xalka sideen ku keenaa marka kulli aan wiilkan waa arkaa galabtii wuxuu soo maraa xaafadeena gurigeyga qolka waliba ma qolkan seexdo daaqadiisu maraa dhinaciisa runtii aniga horta waxaan ogahay inaan jeclahay laakiin isaga naftirkiisa saaxiib inuu iga liito ma umalaynaa sababtoo ah mararka qaar socodka waa kiya markuu daaqadii soo gaar mar gurigeena dhinaciisu istaagaa marka aan naftirkeyga waan shakisanahay mana hubo laakiin waxaan u malaynaa ninkaas asiga naftirkiisa sida aniga ahay inuu isagana yahay niyadaada la amay tahay saaxiib maya saaxiib qof weyn waxaa dareemi karaa no waa tahay saacadaha uu soo mar iyo xiliyadaas mataqaanaa aan sugne galabtii soo maraa saaxiib waa tahay sabaadii haddii arrintu sidaa tahay bal waxaan doonayaa in aan bal ka soo fikiro arrintan sidai aan ninkan ku qaban lahayn bal maalmo yar ii kaadi saaxiib waayo waxba kama qabo laakiin maalmo way badan tahay hal maalin aan jaanis ku siinaa saaxiibtaya tahay waana ogaa inaad dhibkayga dareemi karto waxna ay la qaban karto waa tahay waan dadaalayaa saaxiib waaya baay gabadhii sabaad ahayd jacaalin dhala oo dhagala ku dhacay waayo ninkay jeclaatay meeshuu degan yahay ma taqaano magaciisa ma taqaano xaafadooda ma taqaano dad la saaxiibana ma taqaano haddana had iyo habeen isaga unbaa hortaagan ismahaan oo sabaad saaxiibadeed ahayd aad waxay ula yaabtay dhibka gabadhaa haysta markay u dan sheegatay ee ay ku tidhi walaalay waxaan jeclahay nin caynkaasana ay tidhi maad iska dayso qofka noocaasi aan la aqoon waa tii loogaa siday uga xumaatay oo ay markaa saaxiibadeed ugu tidhi walaalay manaad saa ay leedahay halkaad igala baadi dooni lahayd inaan kaan jecelahay ismahan arrintaasi walwal weyn iyo walaacayay ku abuurtay walle waayaab saaxiibtay sabaad waxa ku dhacay nin ayan aqoonin waxa uu yahay halka uu degan yahay magaciisa xitaa ay iska jeclaatay marka aan iri ninkaasi halkuu ka yimidna wayba ii xanaaqday aad baan uga xumahay saaxiibtay dhibka haysta laakiin in aan la baadigoobo oo halka ugu dambeeya ee natiijo markaas barashada ninkaasiya inaan la tago ayaa iga go-an aad baan uga xumahay walle gabadhaas dhibaatada haysata jacayl indhala oo dhagala ayaa gabadhii helay waxaan sameeyana garan maayo marka waa in aan la baadigoobaa meel allaala meesha wiilkaasi magaciisa halka laga helo iyo weliba si allaala sida aan kusoo qaban lahayn oo aan markaasi usoo xerogelin lahayn taas ayaa iga go-an ilaahay hanala garab galo dhinaca kale sheekada markaynu usoo noqonno dhammaantiin waad ogsoontihiin odaygii caamir ahaa inuu ku maqan yahay dubay laakiin carruurtiisii shanta ahaa ee uu la dardaarmay ee uu yidhi waryaada xaafadda ayaan laga kala tegin ee hala joogo oo dadka dhibka laga daayo kollay way joogaan laakiin waxay faliba way falayaan layli waa curadda oda caamir waxay jeceshahay haddaba layli sida laga dareemayo nin isagu kalluumaystaa waa nin la yidhaah haaruun aroor walba ninkaasi wuxuu tagaa badda 6 aroornimo waxaanu ka soo baxaa 2 duhurnimo layli xilliga uu badda ku jirana way kula jirtaa markuu ka soo baxana way kala soo baxdaa kawaanka markuu yimaadana dabcan kama agfoga balse ma jirto cid awood u leh in ay aragto waa maalinimo jimcaha layla caamir badda marka hoos loo soo raaco dhinaca xeebta ayay ku dabaalanaysaa meel geesa waxaanad moodaa inay keligeed isla hadlayso oo faraha ayay taagtaagaysaa afkana way nuuxnuuxinaysaa talow maxaa jira aniga waxaan ahay gabar jin ah waxaan jecelahay nin insi ah ninku waa kalluumaysato subax walba waxa uu saaqa tagaa badda aniga badda ayaan dhinac kala joogaa waan arkayaa laakiin isaga ima arkin waa yaab waxaan ka baqanayaa haddii aan idhaahdo anigoo gabar jin ah ayaan ku jecelahay inuu boodo laakiin maxaan u dhibi karaa muslim baan isla nahay
jinni muslim iyo insi muslimna islaamahay waxba arrintiisa igu dheeraanin waan u sheegayaa haddii uu arrintaas iga yeelo subax walba maqaaladiisa waan soo buuxinayaa malaay waaweyn iyo maaragtay waxyaabaha qaaliga ah oo dhan ayaan uga soo buuxinayaa hadda waad aragtaa 3 xabo 2 xabo u soo gasho labadaas iyo 3daa xataa maaragtay aniga ku caawiya mararka qaar xataa waxaan ka celiyaa malaayo waaweyn oo xataa inuu gadiyaba ay ku dhowdahay doontiisa laakiin waxaan suubinayaa waan u sheegayaa haddii uu uga yeelo si wanaagsan ayuu taajir u noqonayaa muddo dhow maxaa yeelay aniga awood baan u leeyahay arrintaas waan u sheegayaa laakiin arrinkan waa inaan si dhaqso ah u dhameeyaa isagoo aabahayna uusan ogaanin maxaa yeelay aabahay arrinkan raalli kama aha anagoo gabar jin ah dhalashadeennuna ay jinni tahay inaanu insi guursano aways waxa uu gadaa dukaan aad u weyn oo camiran oo lagu iibiyo macmacaanka sida xalwada toortaha aroosyada iyo waxyaabo fara badan oo macmacaankiya dhinaca dukaankaasi waxa uu ka yahay oo lagu iibiyaa qalabka dumarka sida mesela duruucda googaradaha dharka kale garbasaarada kuwii shakamta la odhan jiray waxyaabii la isku udgunayay adigu xaajaadka dumarka ayaa dukaanka lagu iibiyaa waa dukaan aad u weyn oo camiran كيلا حلوة ربع الله يسارة يا كيلا حلوة أنا شو ما أدري فيها يا هرملة يا سلام هاي باك كيلا حلوة كان هذا كيلا حلوة يعبر كيلا حلوة أباي ما عارفة كو أبرر كيلا حلوة برهرت ورك إسكدا يعبر هرت ما لا باتم كاس إسك عالية كو أبرر لكن مقعي يصير مقعي حلوة ما إسكو حيران ما برش القا قالوا مكتة ولا لسه هذه واي هرتي يعبر مركز كدوة كوشي ساس بيها واتي بسم الله وين بدنا كم ساس وين حبل انا كيلو نعم ولاده 5 كيلو حبل وين ولا لي مقعه ما يسيس بيها وحتى ما انا واسك ابري عنب على دهان عنب يلا يلا يا عنب حدا ما هي مقعه واي دقيقه به واي جاو الله انا وي لا اله الا الله عنوي عنب الله هنا اقعد دكتين كوي عنوي ايش على قبر يا عنب قوي هذا الدكان كوي حرق بسوي ما احرم اذرك ما اسان دافانو وانا هذه عنب ماد الله ما قدو بيسو اي ما قليسو وانا اقعد انا السلط ما بدا فكر به يا والله بالله ايش على قبر حبل سيده تري waxaan abrim oo kiilo maasi 2 kiilo maasi 5 kiilo maasi war qalbiga dhan bay tagayaan qor qalbiga dhan la ilaaha illa allah anawe baasha jaamac waxa qalbigiisa degay jacaylka oo u qaaday gabadha oo daaqada ka halacsaday guriga ay gabadhaasi degan tahay waa marinkiisa markuu kubadda u socdo iyo markuu ka imanayo baashe sinaba waxa qalbigiisa uga dhamaan la gabadha oo daaqada ka halacsaday ee jacaylka daran oo u qaaday si aan yeelo maaqan habeen iyo maalin humaageeda ay hortaagan abooyo maxaan sameeyaa naf jacayla leelay hulwaay mayse oo anigay bay haysaaba haddaan magaceeda xataa heli lahaa meelaan u maro ma aan waayin magaceedii ma hayo muuqeedii un baan hayaa alla murug badanaa waa wax dhibaato badan si aan waxyeelo maaqan maskaxdayda oo dhan ayadii ku mashquulsan tahay wadnahayguna ayaduu u garaacmayaa indhahayguna daaqadii bay ku sii jeedaan
maxaan sameeyaa gabadhaas waa inaanan ka harin nafsadeyda walaahow bay ku abuurtay ilaa aan ka helana cagta u dhigi maayo waa inaan helaa gabadhaas haddaanan helin caafimaad inuu jiro u malayn maayo naf jacayl haleelay holwaaynayse hadimada alla yaan la kaashaday gabadhan ilaahow gabadhaas quruxda badan marun isahay miskiin walle ninkii baasha ahaa gabadhii beri dhawey daaqada uu ka halacsaday ayay kaga dhigtay dhegaystayaal sheekada iyadii filan waa qaybteedii saddexaad waa naga intaa